maayarka caasimadda Hargeysa ayaa munaasabad casho sharafa u sameeyey xulka gobolka Murudijeex uga qayb galay ciyaarihii gobolada Somaliland kuwaasi oo ka kala socday kubadda cagta kolayga oo ay qaadeen xulka gobolka Murudijeex iyo sidoo kale ciyaaraha fudud. Munaasabadan oo ka dhacday Hotel Royal Plaza oo ku yaala galbeedka magaalada Hargeysa oo ahayd madal si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay maayarka caasimadda Hargeysa, maayar ku-xigeenka, mas'uuliyiinta heer gobol, heer degmo, aqoon-yahano, xildhibaano, ciyaartooyga loo sameeyey munaasabadaas iyo marti sharaf aad u tiro badan. Ugu horreyn mas'uuliyiintii kala duwaneed ee halkaasi ka hadashay ayaa waxaa ka mid ah hadaladoodii. runtii gobolka Murudijeex ciyaartooyadii kala duwanaa ee matalayay guul taariikhi ah ayay soo hooyeen. guusha ama libinta koobaad waxaa iska leh kooxda basketballka, guusha labaad waxaa iska leh kooxda kubadda cagta, ta saddexaadna waxaa iska leh orodada oo iyaguna kaalin wanaagsan galay. anagu ka shirkad ahaan markaan ka taga tayada shakhsiga ah ee taageerada aan u qabay xulalka gobolka Murudijeex, runtii waxaan leeyahay kii guuleystay ee baaska ahaa iyo kii soo maaragtay iyaga laftigoodu waxaan qabaa kubadda cagta laftigeedu waxaan u nisbaynayaa inay guuleysteen, waayo barasharka iyo culayska saarnaa markay yihiin ciddii loo yimid ee garoonkooda lagu ciyaarayay ee magaaladooda lagu ciyaarayay ee ishu wada haysay sidoo kalena ahayd cidda ugu koobabka badan. waxaan qabaa inay gacanta qabtaan ay soo koriyaan oo ay kor u soo qaadaan inta ku cusub tartanka. cagtana waxaan leeyahay guul iyo orodadaba. ugu dambeyntiina halkaasi waxaa ka hadlay maayar ku-xigeenka caasimadda Hargeysa Cabdicasiis Cagaweyne iyo sidoo kale maayarka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiye Solteeko oo u ballan qaaday ciyaartooygaas inay ka shaqayn doonaan qaarkood dowladda hoose, isagoo sheegay qaar ka mid in ay ka shaqeeyaan. waxaanu maayarku u ballan qaaday inuu siin doono dhul ay degaan, waxaana ka mid ah hadaladiisii. waxa aan ku faraxsannahay oo aanu fulinaynaa dhammaan ballanqaadku halkan maayarka caasimaddu ka ballan qaaday, hadday tahay dhulkii iyo hadday tahay safarkii aa u baxayseenba oo safar fiican aanu labada waa kii kala sheegay maayarkuye ciyaartooyga koobka qaaday ee basketka waxay raaci doonaan kuwii kale koobka qaaday oo qolo kale ayaa safarkooda tamaanad qaaday iyo wasaaradda. annagu mid farxada oo aan la odhanaynun Hargeysima inamadu waxay la socotuun intii hore miyaanay markii laga qaaday baashan aanay la socon ayaanu idin farxad gelinaynaa. runtii dhammaan ballanqaadyadii aynu iska nidhi markii aad gurigiina joogteen waa sidiisii ballanqaad oo dhamay. run ahaantii gobol ahaan waxaynu ku talagalnay inaynu koobabkaba wada qaadanno. waxay noo suurto gashay inaynu koobkii basketka qaadanno, koobkii cagtana aynu final nimaadno, orodadiina qaybo ka mid ah aynu qaadno oo numberka labaad noqono. aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaanba intii ciyaartooyada ee ka qayb gashay. waxaan leeyahay aad baad u fiican tihiin. gobol ahaanna gobolka oo dhan hadday tahay basket iyo hadday tahay cag iyo hadday orodo tahayba lagu kala tegi maayo. saasaa insha allahu tacaala ay u wada joogayaan xulalka joogaa, cid kusoo biirta mooyaane intani ka tegi mayso insha allahu tacaala. run ahaantii qaybaha laga shaqo geliyaba inta badan inamada waa shaqaale, intii aan shaqaale ahayna insha allahu tacaala dhammaantood waa la dhammaystiri doonaa oo waa la wada shaqaaleyn doonaa. run ahaantii dee raggu waa dhaliyaho waa sportskii badh iminka xaas la iyo badhaan xaas lahaynba dhulkii ay degi lahaayeenna dee dowladda hoosaa wada dhammaynaysa dhammaantoodba. cabdulqaadir Coday, Home Cable TV, Hargeysa.